asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkaadi kula wadaagna sheekooyin kubadda cagta ku wada lahadalhay waxaa mar koowaad ku bilaabeynaa saaxiibayaal xulkeena soomaaliya dabcan waxay ogaan dalkii la ciyaari doonaan israaraabka loo yaqaano koobka qaramada afrika ama afcon waxaana ku aadna xulka swatiniya wareega hadda waa preliminary stageka haddaan swatiniya home away la ciyaarno kasoo gudubno dan kadib waxaan u gudbaynaa wareega guruubyada israaraabka aan galaynaa kadib waxaa noqonaya kow guruub aan galaynaa haddaan kasoo baxno markaas aan taariikhda marka ugu horeysa koobka qaramada afrika ciyaari doonaa afcon waxaa martigelinayaa dalka morocco swatiniya home away la ciyaari doona taariikhda markay tahay 20 bisha maarso iyo isla sidoo kale 26 bisha maarso waa bisha dambe aan iska hor imaan doonaa sidoo kale tan xulkeena soomaaliya sida haatan hordhaca lagu ogaana ama baryahan buu aheyd waxay home match ka dhigan doona dhankaas iyo morocco ayaa lugta koowaad ama lugta labaad lagu ciyaari doonaa midday noqotaba xulkeena morocco waxay u tahay home match swatiniya ayaga xitaa hadda home match meestaan laakiin meesha ay ku ciyaari doon waa la ogaan doona haddii South Africa ku ciyaareen iyo haddii Morocco lagu ciyaari doono labada kulanba laakiin Swatinian ku aadnay madhaxa saraabka maraan ku aadnana I think waxa u maleynayaa inay ahayd saraab kale oo Afrika ma ahayd waa naga badiyeen oo preliminary stage-ka marxaladda koowaad ee bugbaxda ah ama factor play-off-ka ayagan reebay marka laakiin tokadan kama yeerin doon Swatinian waxaan rajeynaa inaan kasoo gudubno nin kadib aan qayb ka noqono qorituurka heerka guruubyada la sameyn doono hadduu alla idmo bal markaana soo qaadana saaxiibada qiimaha badan ciwaanada kubadda cagta waxaa hasta Kylian Mbappe Paris Saint-Germain kasoo tagay kuna biiray Real Madrid sheekadan waa kala baxnaa caalamka idil shabakad kasta hadal hayso jabtarkii hadda Mbappe Madrid in muddo usoo dul qaadanay maanta wargeysadu waa kaga sheekeysanay haddana waxaa cusub this chapter is over uu soo ilaaday Mbappe wuxuu noqon doonaa ciyaaryahan ka tirsan kooxda Real Madrid samarku kusoo biiraya kan waa 26 jir world class player ah sidoo kale koob adduunka guuleystay taariikhda kan ugu goolasho badan Paris Saint-Germain 244 gool shabaqa gaarsiiyay Al-Khalifa toosa loogu sheegay Parisna waxba kama qaban karaan ciyaaryahankan sida officialka Real Madrid wuxuu u saxiixi doonaa qandaraas gaaraya 5 sano ah sanad kastana wuxuu qaadan doonaa lacag gaarayso 15 milyan lacagta euro ah ama wuxuu qaadan doonaa adiga 13 milyan oo bond ma jirto sheekadii aad 50 milyan euro qaadana sanadkii waxaas waa dhamaad hadda sanad kastaba ninkan wuxuu shaqaysan doonaa 15 milyan lacagta euro ah laakiin waxaa jirta ogaada saaxiibayaal 150 milyan oo euro oo Real Madrid ay siin doonto Mbappe maadaama uu kooxda uu doorto si free oo ku imaanay asiga iyo hooyadiisa lacagtan kala qaybsan doona si u badan tahay sidoo kale tan world class player kan waxa la markuu imaado kooxda Madrid xagaaga si aan caadi ayaa loo soo dhaweyn doonaa dhinaca kale tan saaxiibayaal waliba lacagtaas waxa leeyahay over 5 years 5 sano gudaheeda lagu siinaa 150 milyan idminis waxay ka dhigantahay sanad kasta wuxuu qaadaa ninkan 15 milyan lacagta euro nadiif ah iyo sidoo kale dabcan lacaga kale oo la socdaan wuu qaadan doonaa laakiin heshiiskii waalida Paris Saint-Germain si ay Real u cover gareeyeen qaabka laga fahmi karo hamar jug lagu masinaa 150 kooxda uu ku doorto ahaane 5 sano loo qaybiyay mushaarkiisana waa ka gooni dhinaca kalena image rights xuquuqaha uu lahaan jiray Paris Saint-Germain 100% ka qaadan jiray ma jirtay percentage ahaan waa la kala qaybsan doonaa qaybna Mbappe qaadan doono qaybna Madrid qaadan doonto sidoo kale tan waxaa lagu wadaa numberka 10aad uu qaadan doona si uu badanta Luka Modric markuu u baxo sida haatan warbaahinta ee daawacay marka operationka Kylian Mbappe waa isku soo idlaaday sadartay marka ninkan wuxuu noqon doonaa xagaaga ciyaaryahan ka tirsan Real Madrid howlgalkiisana Madrid iyo Florentino Perez way soo gabagabayeen nasiib waxaana leenahay ciyaaryahankan dabcan Real Madrid in muddo baadi goob ugu jirtay hadda gacanta ku soo dhigayaan aqyaani waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada kubadda cagta qaybka legendiga Jarmalka Andres Primer oo dhashay gool kulaadka Amerigoorada xulka Jarmalka ee kaga qaadeen Argentina koobkii adduunka 1990kii wuu geeriyooday Andres Primer waxa uu tacsiyeen dabcan xulka Jarmalka iyo sidoo kale Inter Milan iyo Bayern Munchen iyo maadaama legend weyn uu ahaa kooxaasi xulka Jarmalka u soo ciyaaray 63 sano ku geeriyooday wuxuu ka ciyaari jiray garabka bidix marna qadka dhex caloosha ayuu gali jiray Bremer saaxiibayaal dabcan wuxuu ahaa legend weyn Jarmalka kaliya lagu xasuusto rigoorada shabaqa gaarsiiyay sanadii 1990kii wuxuu ahaa haliyay xulka Jarmalka 86 kulan u ciyaaray 8 gool shabaqa gaarsiiyay sidoo kale tan xilligiisii wuxuu ku guuleystay 8 horyaal ku guuleystay waayihiisii Kaiserslautern iyo FC Bayern Munchen iyo Inter Milan Bremer waxaa lagu xasuustaa saaxiibayaal dabcan waqti uu qurux badan ku soo qaatay Jarmalka dhankaasi markuu joogay Bayern Munchen garabka bidixna wuu ka ciyaari jiray qadka dhaxana wuu gali jiray sidoo kale tan FC Bayern Munchen waxayna aadan kaga xunay geerida ku timaaday Andres Primer qoyskiisana waxayna waa garab taagan sidoo kale tan ninkan world championka Inter Milan waxay dhaheen waxaa baxay shakhsi qaali ah waan ku faani doonaa sidoo kale ciyaaryahankan teedona sanad Inter Milan waxa lagu xasuustaa inuu dabcan waqti fiican la qaatay asigoo guulo dahabi la gaaray dhinaca kalena FC Kaiserslautern 8maadkii bilowgeeda kooxda kusoo bilaabay haddana wuxuu kusoo laabtay 98dii markii qaadeen Bundesliga Jarmalkana qayb ayuu ka xitaa mar ayuu macna u noqday sadartay marka legend weyn ayaa Jarmalka ka baxay sidoo kale tan waxa leeyahay Jarmalka waxa u taala murugo bishii Janaayo waxa ka geeriyooday France Beckenbauer macallinkii xulka Jarmalka u qaaday koobkii adduunka asigoo 28 jir ah
ayuu geeriyooday marka legendii waana Jarmal ka baxeen horena waxaa ka geeriyay ninkii caanka ahay ee Gerald Muller saa darteed marka barordiiq iyo tacsiya u taal dhankaas iyo Jarmalka saaxiibayaal waxaan soo qaadan karnaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Marseille ayagana waxay raacdeen Gennaro Gattuso sidaas maxay u magacaabeen tababarihii badal lagu magacaabo Jean Louis Gasset sida shaac laga qaaday Gattuso wuxuu hogaaminayay kooxdan saaxiibayaal qadar 5 wuxuu hogaamiyay 15 kulan oo kaliya French League 1 wuxuuna guuleystay 5 kulan oo kaliya iska baxal dhahay xaaladda ku xumaatay bishii September oo kooxda qabtay haddana waxay joogaan naadigan kaalinta 9 joon kala sareynta French League 1 Gasset oo dabcan 76 jir ah 70 jir iraade ayaa dhawaan laga raacday waa ka warqabnaa macallinkii Ivory Coast watay markuu koobka qaramada Yurub koobka qaramada Afrika bilaabana group stage-ka Ivory Coast watay asagan Ivory Coast group stage-ka laga raacday hadda laakiin Franciscan Gasset ayaa kooxda Marseille qabtay sidoo kale tan Gattuso oo kooxda min waqti fiican ku soo qaatay ilaa hadda waayihiisa macallin waa fariisan lahayd mar waxaa qabataa Valencia mar Marseille mar Napoli mar Milan ilaa hadda mar Gattuso wuxuu ka bixiyay jawaarar saas ayaa shaqada looga raacday dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa sheekooyin kubadda cagta qaybka Major Soccer League bilaaban doona Messi wuxuu ku yeeshay saameyn wali ah Major Soccer League sida tooska u bilaaban doona waxay noqon doontaa markii ugu horeysay oo Messi season dhameystiran uu ciyaari doono Major Soccer League sababtoo ee 2023 markuu oday imaanay horyaalka meelo dambe marayo imaaday laakiin this time horyaalku la bilaaban doonaa haddaba waxaa dhankaas waqooyiga America 3 sano oo waxa ku socoto mashquul badan koobka adduunka ee 2026 martigelinaya Real Mareykan iyo Mexico iyo Canada sidoo kale tan waxa uu soo dheer koobka America xagaagan ay martigelinayaan iyo sidoo kale FIFA Club World Cup oo 2025 ay martigelinayaan laakiin hadda madashu waxa haysta Leo iyo ciwaanada uu sameynayo saaxiibayaal maxaa isbedel dhacay ticket sales waxa leeyahay dabcan 10 kooxood ee ugu caansan ama top 10 teams ka Major Soccer League afar laab ayuu qiimahooda sare u kacay 12 bilood ugu dambeeyay waa saameynta Messi sidoo kale waxa dhammaan kooxaha Major Soccer League ciyaarana waxa leeyahay dabcan kobaca dhaqaale ee sameeyay inaba caadi ma tan iyo markuu Messi imaaday dhinaca kale 2024 season kan waxa leeyahay saaxiibayaal 44 dal ayaa laga iibiyay daawashada satellite-ka ama TV-ga horyaalka Mareykanka ama Major Soccer League ayada wali waxa leeyahay saaxiibayaal ay ahaan jirtay boqolkiiba waxa leeyahay dabcan 5 meelahaas adduunka laga daawanay haddana boqolkiiba waxa leeyahay dabcan 30 meelahaas dalalka caalamka ay ka badan waxay diyaar u yihiin daawashada Major Soccer League Argentina oo kale waxa leeyahay waxay noqon dalka macaamiisha ugu badan subscription-ka iibsadaan inay daawadaan horyaalka Major Soccer League Inter Miami waxa leeyahay saaxiibayaal 10 kulan oo ay la ciyaari doonto kooxaha top 10 ka garoonkooda ay ku ciyaaraan ama way aadi doonaan tigidhka waa sold out waa la iibsaday marka Messi kaligiisa hadda nolol cusub u bilaabay Major Soccer League sida muuqato horyaalkan xiisaha noocan ma lahan jirin laakiin waa saameynta Messi dhinaca kale saaxiibayaal UEFA shaaca ka qaaday labada dal ee hadda haystaan labada boos ee lagu abaalmarinayo min 5 kooxood inay u ciyaaraan xilli ciyaareedka dambe hadda waxaa leeyahay dabcan season-ka markii uu dhamaado season-ka xigo UEFA Champions League wuxuu noqon doonaa 36 naadi ayadoo markii la fiiriyo top 5 leagues horyaalada ugu wada badan Europe laba position la siin doono hadda positionada extra waxa haystaan saaxiibayaal Italy iyo Jarmalka hadii ay saan ku dhameystaan waxay ka dhigan tahay in dabcan Bologna iyo RB Leipzig oo ku jiraan kaalimaha shanaad oo horyaalada Jarmalka iyo Talyaaniga kaga jiraan inay toos u aadi doonaan dhankaas iyo dabcan UEFA Champions League shaqay ku imaada 5 sano ugu dambeysay UEFA coefficient ranking ay ugu sareeyaan Ingiriiska dhibaato waxa ku hayso maqnaanshaha Newcastle iyo sidoo kale dabcan Manchester United oo gurigooda aadeen laakiin Liverpool iyo Arsenal iyo Man City iyo West Ham iyo Aston Villa hadii dadaalaan coefficient ranking way soo qaban karaan Talyaaniga iyo sidoo kale dabcan markii la fiirsho Jarmalka Italy oo kale waxay haystaan 14.74 Jarmalka waxay haystaan 13.92 Ingiriiska waxay haystaan 13.85 Isbaanishkan waxay haystaan 12.93 sadarteed season-ka markuu dhamaado standing coefficient ranking sida uu noqdo ayay ku xirnaan doontaa labada position yaa qaadan doona Bundesliga Jarmalka Premier League Serie A iyo La Liga marka idinkan ay commentigiina ka dhiibta aqyaarta qiimaha badan waxaan kala soo qaadan karnaa markii la fiiriyo tababaro kale warbaahintu wuxuu u sheegay in Diego Jota uu bilooyin maqnaan doono wuxuu dhahay he will be out for months micnaha hal bil ma aha laba bil ma aha bilooyin ay maqnaan doona inta ay tahay exactly wuxuu dhahay ma sheegi kari kolob marka waxay ku tahay dhibaato weeraryahanka Portugiiska kooxdiisa ka dhaawacmay sidoo kale tan wuxuu dhahay wuxuu ku soo kaban doonaa Diego bilooyin isbuuci kuma soo kaban doono hadda wuxuu dhahay waqti sax idama siin karo laakiin wuxuu dhahay ku xiran tahay hadba sida uu ku soo kabtaan arki doonaa Liverpool marka dhibaato badan ay haysato ciyaartoy badan dhaawac ka ah dhinaca kale tan wuxuu sheegay Curtis Jones jugta soo gaartay in asagana lagu sameyn doono maalinba maalin qiimeyn gaar ah xaaladiisa la ogaan doono halka Darwin Nunes jugti gaartay wax weyn aysan ahayn laakiin waxa hadda daran sidoo cadeynaa macalinkan Jota oo muddo dheer garoomada ka maqnaan doono aqyaarta barnaamijka aan kula wadaagana sheekooyin kubadda cagta ku wada la hadalhay intaasaan kusoo gabagabeynayna
xasuusin haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambe hadduu alla idmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu